waxyaalaha maalmahan dambe ka socda deegamadii dadkan asalka u ahaa iyo cawaasimtoodii oo ah dulmiga iyo dhaca iyo burburka iyo boobka haddaan sheegin ama culimadu ayna sheegin waa mas'uuliyad ilaahay kala xisaabtamay cidii kari karta haddayna wax ka qabanin waa su'aal ilaahay agtiisa u taala baraa'atan lidhimma براءة للذمة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون waxay soo jiitay oo in badan maskaxdayda iyo dareenkayga aad u soo jiitay waa suuro ka mida suwarka dhacdooyinka dhacaya mid ka mida waay boqolaal kumayaal mid ka mida waay hooyo da'ah oo 80 sano dhaaftay oo muqdisho caasimadii laamiga iyo wadada dhexdeeda qayliyeysa oo banaanka taala oo ilaahay u cabanaysa oo UN-kiya gaalada u cabanaysa oo dawladeedii iyo ganacsatadeedii iyo dadkeedii ka cabanaysa oo ala gurigaygii baa la iga qaatay oo booskaygii baa la iga qaatay oo da'daasaan kula soo ekaaday oo waa la iga saaray oo ganacsadaa qaatay oo dhisanaya yay u dacwoonaysaa الله تبارك وتعالى ييك دعوونيسا كي إلالين لها كي قري أردسي لها كي دريالي لها كي وحسين لها كي ضيعتري لها كي لامي قادي لها كي عبشد يضا وحكا قبن لها أي كعبنيسا ونانكي تالا وصورة عيبة وصورة فالحن ووحلق حماده وانا وحلق دنقضه وحي حسوسي سي قصوين يلعذوين وقتي نبينا صلوات ربي والسلام عليه دعي وتصنوا كلاو يريك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه صحابتي سقار كمده وكوي أهجرودي أرض الحبشة مركي مكان لغو دبي صحابتي وحا أضي أها نبي محمد إناديركي جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعفر مددر كدي مركو كسو نقضي أرض الحبشة نبي قال لكم صلى الله عليه وآله وسلم كذب وحويديي جعفر واحد يغشى كيسا انت جوجتين أرض الحبشة وحيابيه قال لكم انت وحي كوغيا بدنا إيشك جعفر وحوي لرسولك إلهيو مال المالمها كمذا هويني دنبيل مدح كوضت cuntana ugu jirto ayaa waxaa soo marnay nin faras saaran baa soo maray ninkii haweenaydii dhib u geystay cuntadii dambiishii meesha saarnaydna waa ka riday cuntadiina waa ka daadiyey faras buu saaran yahay waa nin xoog badan iyadana waa haweenay tabar daran kadib waxay bilowday cuntadii dhulka ku daadatay inay dambiishii ku gurato oo dib ugu celiso isagiina saa intay u fiirisay waxay tiri waylun laka nacas yahow halaag iyo hoog baa kuu sugnaaday maalinka allah tabaaraka wa tacaala uu kursigiisa
uu keeni doono si uu addoommada u kala xukumo midka gardaran ee tabar daran ee la dulmiye midka laga gardaran yahay ee la dulmiyeyna allah tabaaraka wa tacaala xaqiisa uu uga qaadi doono kii dulmiyey maalinkaasaa halaag kuu sugnaaday nacasiyo tabar ma hayso wuu ka xoog badan yahay faras buu saaran yahay gaadhi buu ku socdaa weeye maanta kursi buu saaran yahay ayaduna waa miskiintaasi waxoogaaga raashinkeed dembiisha madaxa ku wadato xoogaageedii buu ka daadiyey kadibna horay buu u dhaafay laad iyo haraati buu ku sallaxay ilaahay bay u cabatay maalinkaa xaggeed geli doontaa nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam qisadaa markuu jacfar u sheegay rasuulku sal alla alay wasalam waa qoslay ilaa ay gowsihiisu muuqdeen markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam kayfa yuqadisu allahu ummah ilaahay see buu u daahirinayaa see buu ugu dembi dhaafayaa see buu ugu naxariisanayaa see buu u daynayaa ummad keeda tabarta daran aan xaqiisa looga qaadaynin midka xoogga badan isagoon weliba lagu rafaadinin oon la murug gelinin oon la argagixinin si tartiiba ka tabarta daran hadduu xaqiisa gaadhi waayo oo ka xoogga badan looga qaadi waayo ummaddaasi see bay u jiri kartaa seese ilaahay u daahirinayaa tabaaraka wa tacaala ummad dadkeedii tabarta darnaa ku hoos dulman yihiin kii xoogga badnaa uu dulminayo kii hantida haystay dhulkeedii uu ka ganacsanayo dawladdii ilaalin lahayd ay ka taajirayso madaxdii ay waxaa ku samaynayso ilaahay tabaaraka wa tacaala see buu ummaddaa u istaajinayaa oo xadhkaheeda isugu guntayaa oo arrimaheeda isugu hagaajinayaa oo howlaheeda u tabantaabinayaa oo sidee bay qaran iyo dawlad ku noqon kartaa ma suurtagal baa kownkaasoo allah kama taliyo allaha caadilkaasoo kownka kama taliyo dadkan madluumiinta arkaya qiso taasoo kale aan nabigeennay ku dhacday salawaatu rabbi wasalaamu calayh ibn maajah iyo kayrkii waxay soo saareen nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi nin acraabiyo reebaadiye ah baa u yimid dayn buu rasuulka ku leeyahy sal alla alay wasalam dayntiisii buu ka rabaa timir buu daymiyey dayntiisii buu rabaa inuu ka qaato maxamedow dayntaydiisii hadalkii buu nebiga ku adkeeyey si waxoo yaro qallabsan oo acraabtii reebaadiyaha dhaqankoodii hadalkooda saa iska ah waxumee isma laha laakiin dabeecaddoodaa saasa hadalkii qallafsan buu nebiga kula hadlay sal alla alay wasalam ilaa uu ka yidhaahdo cidhiidhi baan ku gelinayaa waa ku abhinayaa xaqayga ii gud markaasay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ninkii bay guulguuleen ninkii bay si adag ula hadleen waxay ku yidhaahdeen war habaar qabe war hooge war ninkan aad la hadlayso ma garanaysaa tadri man tukallim ruuxa sidan ula hadlaysa ma taqaanaa ninkii wuxuu yidhi acraabiga ahaa war anugu xaqaygii umaan rabaa aniba wax kalaan sheegay xaqaygiisii umbaan ku idhi ninkane xoolahaygii umbaan rabaa aniga nin iyo nin maxaa iga galay xoolahayga hallaysiiyo yaa waaya ishaya marka galu fiirsada dawladda maxaa laga rabaa madaxweynaha maxaa laga rabaa ra-iisul wasaaraha maxaa laga rabaa wasiirada maxaa laga rabaa baarlamaanka maxaa laga rabaa ganacsatada maxaa laga rabaa u fiirso nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh baa wax lagu sheeganaya ninka wax ku sheeganayana waa nin acraabi oo reer baadiya xataa saxaabadiisii muddo dheer la noolaa ma aha waa acraabi baadiye ka yimid nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadii markay ninkan guulguuleen wuxuu ku yidhi waa ka celiyey wuxuu ku yidhi hallaa maca saaxibi alxaqi kuntum
maxaad cidda xaqa leh isu garab taagi weydeen yaa way cidda xaqa leh waa acraabiga maad isaga isgarab taagtaan maad isaga u hiilisaan maad tidhaahdaan nebi maxamedow xaqa lagu leeyahay iska bixi acraabigu waa kaa gar leeyahay hallaa maca saaxibi alxaqi kuntum war ninkan xaqa lehee acraabiga maxaad u garab istaagi weydeen buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh tarbiyadii nebi maxamed waaye salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii layga xaq leeyahay iga hiiliya xataa ciddaad u hiilinaysaan acraabiba ha noqdo yayna idinkedinnin waa nebi maxamed yayna idinkedinnin waa rasuulki ilaahay yayna idinkelinin waa khayru khalqi illaah xaq baa meesha yaalle cidda xaqa le garab istaaga markaasaa nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam gabadh ka mida saxaabiyaadkii buu u cidiray oo la dhihi jiray khawla binti qaysin wa fii riwaayatin khawla binti xakiim wuxuu ku yidhi khawlay haddaad timir hayso ila dayntii baa timir ahayde timir noo soo dhiiboo na soo daymi timirta isoo daymi timirtannadii markay timaaddo ayaan kuu gudayaa buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh kadibna khawla markii farriintii nebigu gaadhay waxay tidhi nacam biabii anta yaa rasuula allah aabbahay baan kugu beddelan oo wax kaa fiican oo kaa qiimo badan maba jiree waan yeelay kadibna timir daynay u soo dhiibtay rasuulka sal alla alay wasalam rasuulku ninkii acraabigaa dayntiisii buu siiyey warsoo timir maada igu lahayn haa waata dayntaadii markuu nebigu timirtii siiyey ayuu haddana weliba cunto ka dharjiyey cuntadii uu ka dhargay iyo dayntiisii oo uu wato ayuu markaasi la yaabay kadibna wuxuu yidhi awfaytanii awfa allaahu lak si dhammaystiran baad xaqaygii ii siisay ilaahay tabaaraka wa tacaala si dhammaystiran ha kuu siiyo markaasaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ulaa'ika khiyaaru nnaas dadkaasi waa dadka ugu akhyaarsan xaqa mar walba isgarab taaga markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay wasalam sidee buu ummad ilaahay u daahirinayaa see baa ilaahay ugu dembi dhaafayaa ummadkeeda tabarta darani xaqiisii uusan gaadhi karin oo uusan ka qaadan karin ka xoogga badan isaga oon lagu dhibin see ummad noocaasa ilaahay u dahiraya waa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummaddiisii buu tarbiyaynayaa innagu ina tarbiyaynayaa maantana waxaan taagannahay war her waa daalime dadka ha laga qabta haddii la yidhaahdo reerkiisaa xanaaqaya saaxiibbadii baa xanaaqaya kuwii raashinka la cunay ee wax la urursaday baa xanaaqaya maxaa laga rabaa war waxaa laga rabaa dulmiga daa ka garab taagan soo maa nebigeenna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii ruux daalim ah garab istaagoo dulmiga ku garab istaaga wuxuu la mid yahay buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam sida neef geela oo ceel ku dhacay oo saynta la jiidayo sidii looga soo saaro ceelka darteed bal isweydii neef geel ah oo ceel ku dhacay oo saynta la jiidayo ma la soo saari karaa abadan sayntaa soo gu'i ma laga soo saari karo macnaheedu muxuu yahay halaag xaqiiqa ah buu ku dhacay booliiska u kaalmaynaya ciidanka u kaalmaynaya guddoomiyaha u kaalmaynaya kuwa garabka u ah kuwa wax la soo qabanaya qabiilka garab taagan waad halaagsanteen ummaddana waad halaagteen ceel baa lagu daatay aan laga soo bixi karaynin halaag muxaqaqaa lagu dhacay aan laga soo bixi karaynin kii tabarta darnaa baa la dulminaya looma ooyaan baa la yidhaahdaa qabiil badanoo difaaca ma leh xoog badan ma leh tabar badan ma leh awood baa loo sheegan xuquuqdiisii baa la qaadan miyuusan ilaahay lahayn nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi oo uu ku yidhi saxaabadiisa nin ka mida mucaad ibnu jabal ittaqi dacwata almadluum fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab ruuxa laga gardaran yahay habaarkiisa iska jir allaah
iyo habaarkaasi wax xijaaba uma dhaxeeyo siduu u ordayo u socdo habaarkaasi ilaahay buu u tagayaa allana wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala wacizatii wajalaalii cizadaydii iyo jalaalkaygaan ku dhaartay la ansurannaka walow bacda xiin walla inaan kuu hiilini wakhtibaha ka soo wareege wakhti ha qaadato laakiin rabbulkown wuxuu ku dhaartay madluumka laga gardaran yahay ee xooggiyo awoodda loo sheegtay inuu u hiilinayuu rabbi ku dhaartay muddadu intay dooni ha qaadato xoog sheego awood sheego dhaqaalo sheego reer ku faan dawladnimo ku faan uruurso ka dhereg bangiyada buuxso laakiin waxaad ogaataa waxaa kaa dambeeya maalin inuu dhacaanku kaa daadan doono maalin aad farta ka qaniini doonto shallaayi doonto adayna kugu dambayn doontaa walla inaadan liibaanayn adiya inta ku garab taaganba ummadii maxay ku jirtaa ummadii cadaalad bay ku jirtaa ummadii ka tabarta daran inay garab qabatay ku jirtaa ummadii inay khayrka isu garabsatay ku jirtaa ummadii waxay ku badhaadhaayo wanaag ku gaadhaa in ay khayrkiiyo wanaagga isgarab taagto dulmigana iska qabato haddii qaba weyda soo maaha kaa keliya ku ekaan mayne godkana waa la gelaynaa waana la daadanaynaa wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa kii awoodle gacanta qabo kii hadli karaw hadal kii ugu tabar yarowna qalbiga ka kaho ha garab istaagin hana u hilin hana ku farxin dulmigiiyo gardarrada socotiyo ummaddan isdulminaysa haddii kaleeto waxa weeye dhibaatada ina haysotahay inay sii weyn xumaato mooyaane rajo lagama qabo saxiix muslim waxaa ku yimid nin la yidhahdo mustawrid alqurashi ayaa wuxuu saxaabiga la yidhaahdo camr ibnu caas agtiisa wuxuu ku sheegay xadiid nebiga sal alla alay wasalam wuxuu yidhi nebigaan ka maqlay sal alla alay wasalam isagoo leh qiyaamadu markay dhacayso dadka waxaa ugu badnaan doona ruum waa yurub ruum waa reer yurub baa dadka ugu badnaan doona markay qiyaamadu dhacayso nebigoole baan maqlay camr ibnu caas baa wuxuu yidhi hadalkaa ka fiirsa buu ku yidhi wuxuu yidhi maxaan ka fiirsani nebiga hadalkiisii unbaan sheegay camar wuxuu yidhi haddii sidaa arrinku yahay oo hadalkaasi nebiga aad ka maqashay saa uu yahay sababtu waa 4 arrimood oo ay leeyihiin buu yidhi arrinta koobaadii waxa weeye axlamu nnaasi cinda fitna markay fitna dhacdo dadkeed way ugu degan yihiin waa ugu caqli badan yihiin waa ugu xasiloo yihiin fitanka markaaba waa daba qabtaan wa asracuhum waana dadka ugu degdeg badan inay baraarugaan marka ay musiiba dhacdo musiiba markay ku dhacdana markaaba waa baraarugayaan oo ay daba qabanayaan wa awshakuhum karra bacda farra markay cararaanna durbe inay soo rogaal celiyaan baa dhaqan u ah ta afraadna wuxuu yidhi waa midaan u soconnee wa khayruhum limiskiinin wadaciifin wayatiimin wadaciif dadka xilligaa iyagaa ugu khayr badan oo ugu naxariis badan miskiinka iyo agoonka iyo ka tabarta daran afartaa markuu sheegay buu wuxuu ku daray mid shanaad oo wanaagsan oo qurux badanna waa tanuu yidhi oo maxay tahay amnacuhum min dulmi almuluuk madaxdooda iyo boqorradooda dulmigoodana dadka ugu reebid badan waaye bal u fiirso madaxdooda iyo dowladahoodu inay dulmiyaan nidaam bay u sameeyeen ka celinaya inta badan haddii la waayo taa iyada oo xadhig xidhan la waayo oo xuduud xidhan la waayo oo bulsho celisan la waayo oo xadhigga madaxdu furnaadoo say doonaan wax u dulmiyaan markaasi ummadi jiri mayso qaranno jiri maayo dowladna jiri mayso dalna jiri maayo dulmigaasi ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala waa qoraya
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما mid laakiin ogaada meeshay u dhimanayso waxay tahay dulmigani sababtiisu waxa weeye innagaa dalama ah innagaa daalimiinoo isdulminay qabyaalad baan isku dulminay waan isxasuuqnay waan isbaabi'innay xumaan baan isku samaynay waynu qaybsannay ilaa maantaynu daba joognaa ilaahay sunnadiisa waxaa ka mid wakadalika nuwallii bacda aldaalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun haddaad daalim tahay shacab daalim ah oo qabiilaysta ah oo qaybsan oo isagu isdulminaya ilaahay sunnadiisa waxay kuwa daalimiina inuu kor ka saaro gaala inuu u gacangeliyo ama madax iyo dawlad daalimada inuu u gacangeliyo say doonta ka yeesho ciyaalkoodu cabaadaan dumarkoodu cabaadaan say doonta yeelaan dhacaan burburiyaan ilaahay sunnadiisa waa kamaa takuunuuna yuwallaa calaykum xaalkiinnu siduu yahay baa madax la idinka dhigayaa su'aashu waxay tahay marka ma soo noqonaynaa war ma towbad keenaynaa war ilaahay ma u soo noqonaynaa war xaalkeenna ma saxaynaa war rabbi tabaaraka wa tacaala ma raadhi gelinaynaa war qabyaaladdu ma tuuraynaa war qaybsanaantu ma ka tegaynaa war daalimka aynu garab taagannahay ma daynaynaa hadday jawaabtu haa tahay xaalku waa hagaagaya hadday jawaabtu maya tahay oon sidaa ku sii soconno ilaahay tabaaraka wa tacaala daalimka daalim kale unbuu ku beddeli sidaa unbaynu ku halaagsamaynaa ku baaba'aynaa dalna jiri maayo dawladna jiri mayso qaranna jiri maayo ummadna jiri mayso ummadahaan u qaybsami doonnaa deegaammada kalean ku kala carari doonnaa dalkaasina iyo deegaannadaasina ummad kaluu ilaahay dhaxal siin doonaa wa tilka sunnatullaah aaway andulus aaway dhulkii muslimiinta aaway dhulkii ardulfirdows aaway xaggay ku tagtay dulmi baa saa u galo gaalo u gacangeliyey war ma soo noqonayna war ilaahay u soo laabta war xumaanta ka taga war ka beri noqda war daalimka ka taga war daalim garab kuuma aha war waxba kuuma aha war waxba kuuma taro kula qabiil ma aha kula xisbi ma aha maslaxadaadii iyo dantaadii aakhiriya adduunba wuu burburiyey muxuu dadkaaga xigaa ittaqu allah